General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ahaa saraakiishii dawladii militariga ee Soomaaliya oo waraysi siinayay TV-ga Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira dalka isagoo si gaar ah u dhaliilay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Generaalka ayaa waxa uu sheegay hamigii ay u qabeen shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuusan muuqanin kale meel kastoo joogto haday Jabuuti degan tahay Jamhuuriyadda Jabuuti haday kalinka sharaad joogto haday NFD joogto meel aan looga dabaal degin ma jirin garanaysaa waa la ogaa hadda cabinkii markii lagu dhawaaqay la dooranayay wixii rasaas iyo isku duba dhacay oo cirka loo riday oo cirkii dhamaa u noqday maaragtay xidigo iyo dayax sababta waxay hanweynida loo qabay ninkaas inuu maaragtay dhibaatadii meesha ka jirtay oo wax ka qabanay kale General Maxamed Nuur Galaal ayaa waxa uu ka hadlay booqasho ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku yimid magaalada Muqdisho isla markaasina ay heshiis saxiixdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu yahay nin degdegaya isla markaasina dana gaar ah oo ka leeyahay dalka Soomaaliya degdegna waxba ma dhalo waxaan qasaare ahayn ma dhalo asagoo waa yimid 4 saac buu joogay waxaan maqlay siday ku wada communique la soo saaray ama war murtiyeedkii ay soo saareen labadooda markay wada shireen in 18 qodob lagu heshiiyay oo dekada loo safrid loo ganacsi loo hadee qoryo wala uu soo qorta asagu ayuu ninkan hoos dhigay ninkan uu aqbalay haatan ima dhihi karo 18 mashruuc aan 4 saac inta lagu dirsay oo lagu maaragtay gana jaray oo la isku waafaqay ayaa oo faa'iido labada dhinacba u leh oo ninas General Maxamed Nuur Galaal oo si hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo booqasho ku tagay dalka Eritrea isla markaasina kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi mar uu qudbeynayay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cunaqabataynta saaran Eritrea laga qaado hadalkaasi oo si weyn uga careysiyay dawladda dalka Djibouti oo ah dawladaha ugu dhow dalka Soomaaliya. Generaalka ayaa waxa uu sheegay markii uu maqlay arintaasi inuu aad uga xumaaday isla markaasina ay tahay arin aan u qaadmin dalka Djibouti iyo dadkiisaba. Ugu dambeyntii generaalka ayaa waxa uu ka hadlay qaabka loo heli karo ciidamo qaran oo suga amniga waddanka Soomaaliya. aan sargaalkayga noqdo oo maaragtay aan wasiir noqdo gaashaandhigo ama aan taliye ciidamada noqdo oo nin arintaas dhahaya ma ii laakiin waxaan ogahay waxaan jeclahay in ciidankii dib loo abaaburaa loo dhisaa maaragtay iyadoo laga faa'iideysanayo qaladaadkii la arkay waagii dagaalka lagu jiray qaladaadkii la arkay oo ciidanka dhexdiisa laga arkay iyadoo taas laga duulayo in ciidankii dib loo habeeyo oo nidaamkiisi dib loo eego oo xataa qaabka u dhisnaa wax la iska weydiiyo oo lagu habeeyo wixii ciladaha oo la arkay waagii dagaalkii ma garanaysaa marka wax nagala anigu ambitionkaas iguma jiro waan ku sheegay laakiin waxaan diyaar u ahaa inaan maaragtay arinta noocaas inaan kala shaqeeyo dawladda kala shaqeeyo oo iyo ciidamada iyo dadka mas'uulka looga dhigo kala shaqeeyo ayaan anigu rabay ayadiina waa la waayay dadka ay keenaya waa waxa niyad jab waxaad arkaysaa Cabdullaahi Farmaajo waa nin ciidanka asluubta ahaa oo sargaar ah ciidanka asluubta ahaa ayuu inta keenay gaashaandhigo ciidamada waxaad igala talinaysaa dib u dhiska xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu yiri inta meesha soo fariyo waa asluubta Soomaaliyeed aliye waliga aan arag meel ciidan iyo aan soo dhex taagay marka taas waxay niyad xumo ku tahay oo niyad jabkii Maxamed Siyaad ku sameeyay kontaga markii la diray oo ciidanka ku sameeyay niyad jab kale ayuu ku sameeyay saraakiishii waxa uu joogtay intaasoo generaal ayaa agtiisa joogay garanaysa intaasoo colonel intaasoo waaya arag inta ka tagay oo nin asluubta ah ayuu igala taliya xoogga dalka Soomaaliya war waxaas oo kale wax lagu hadlamaya wax la arkay markaas ku cadaanaysa ninkan inuu soo jeedin inuu ciidan dhiso Maxamed Axmed Cabdi Qoyar Socod Galmudug TV Gurceel.